waxaynu gidigeen ognahay in isticmaalka telefoon ama laptop uu cudur yahay caafimaadkaaga u xun. Umada Yurub oo dhan imika waxay doonayaan inay ku daraan qofku hadduu addicted ku noqdo cudurrada waaweyn 3 level ayaan ka dhigay dadka telefoonka isticmaala. Level 1 waa ka ugu sareeya ugu khatarsan, waa dangerous. sababtu khatar ku noqdina waxa weeyaan they don't care baan idhi anugu. They don't care ka waxa weeyaan yani iyaga ma waxa yeelo ama cidii wax yeelin. Level 2 kan qudhiisa isticmaalkiisu wuu badan yahay, laakiin isagu wuxuu ku jiraa meel la yidhaahdo recognition oo uu og yahay ama uu aqbalay inay dhibi jirto. They don't know where to start. meel laga bilaabo ayaan weli u caday. Wuxuu xasuustaa in ayeydii odhan jirtay indhalaan baa laga qaadaaye waxaan maaragtay isku badinina. levelkana waxaan idhi waxa weeyaan waa levelka ugu fiican, waayo iyagu waxay ku fiican yihiin managing time, yani waqtiga ayay ka faa'iidaystaan. Su'aashan ku weydiinaya waxa weeyaan adiga maanta bal ma koobaad tahay ma labaad tahay mise 3? kolay dadka badankood Ismaaciil oo meeyo wuxuu odhanayaa level 3 baan ahay anigu already, laakiin levelkaaga beena ka sheeg hoosta ku qor. markaan shaqaynayn ama aan family-ga hawlihiisa ku mashquulsanayn, waxaan jecelahay inaan sameeyo waxyaabahan jecelahay anigu. waxa ka mid ah inaan sameeyo muuqaalo, waxa ka mid ah inaan wax barto. marka saad teleefankaaga furto bal waxaad isku daydaa inaad wax cusub barato maanta. Sidaad samayn kartaa markaa waxa weeyaan waa inaad timetable samaysid.